shaqadana ka hadlo su'aalna ha ahaadaan ha waa su'aal dee wax kale ma imaan lahayn halkan haddii aan madaxweynaha su'aal la weydiin lahayn khudbad ma jeedinayo waa mahadsan tahay waxaan rabaa dhanka shaqada markaan ka hadlay madaxweyne waxaa la yidhaahdaa markii golo wasiir lasoo magacaabo wasiirka yimaada wasiirka ha aado tusaalaha usoo qaadanaya kama wado wasiirka warfaafinta maareey wasiirka dhalinyarada nuux markii tusaale ay yimaadaan intii isku jufaha oo walaalaha ilma adeer bay soo wataan oo wasaaraddii geeyaan kuwii hore u joogana waa la eriyaa waxaa la yidhaahdaa waqtigaa idinka dhawaada iska baxa marka taa dawladdu maxay ka qabanaysaa tusaale anuu wasaaraddii warfaafinta u shaqaynaayo ama wasaaraddii dhalinyarada ama wasaarad kale oo shaqadii shaqaalaha haddii yimaado wasiirkii oo uu keensado qof kaloo beeshiisa anigana meeshii la iga riixo la i taakeeyo socoqdad ima galayso waa inaan tahriibaa oo aan badaha maraayo baasboor caalami kusoo qaataayo xafiiskii madaxweynaha imaadaa taas dawladdu maxay ka qabanaysaa midda kale waxaan ku dari rabaa oo inaan ka hadli rabo arrimahan la xiriira shaqooyinka lasoo bandhigay tusaale maalinleedaan shaqa barbaaray internetka waxaan arkay shaqo la doonayo shuruudeedu ay tahay Soomaali ah qofku waa inuu amxaari yaqaanaa ilaahan kugu dhaarsho madaxweyne ma Soomaaliyana ama amxaarana waa in la kala saaraa baash marka dawladdu maxay ka qabanaysaa dhanka luqadaha waa in sidoo kale arintaas laga baaraan dagaa mid kale aan raacsana arinta tahriibka laba is saaran mid tahriibka waxay tahay waa idinla kaftamaa madaxweynaha iyo wasiirada madaxweynaha tusaale ama wasiirka warfaafinta fadhiya ama wasiirku nuuxoo yar yaa isleeyahay xoogaa ma uusan guursan haddii uu guursado caruurtiisu ay yar yihiin waxaa la yidhaahdaa caruurtiinu dibadaha jiraan maraykanka canada united kingdom caruurtiinu iyo maqaan oo halkaas joogta idinka waxaana leedihiin wadankii joogo caruurtiinina oxford university wax ku baranaya yaa madaxweyne marka tusaale wiilkaagu waa target waan ognahay laakiin haddii madaxtooyada uu deganaan lahaa anoo ku qanci lahaa hadii la waraa wiilka madaxweynaha wuu joogaa maxaa adig ku wadaayo maraykanka ka doonaysaa laakiin wiilka madaxweynaha maqan wiilku wasiirku maqaya ana maxaa muqdisho ka joogaa ya waa in arintaas madaxweyne baasaboorka la tayeeyaa tusaale waxaa ka mid ah baasaboorka Soomaaliga waxa dhibaatada haddeer baasaboorka Soomaaliga in inta ka baxo oo aan maraykanka ka degi kara ama Talyaaniga anoo ka degi kara wallahi inaan wadan islaameed aadin oo waa soo raaxaysan afar bari markaa maqnaadana soo laaba lahaa laakiin dhibaatadana hayso waxay tahay war baasaboorka Soomaaliga wallahi Uganda ugu dambayso on arrival lagu qaadan jiray wallahi inaadan tagi karin aadan ku tagi karin waa in safaaradda 20 iskaga dabalaalaataa waa in baasaboorka Soomaaliga la helaa wadan caadi aad ugu tagi karto war aan Mareykan haddii maanta oo baasaboorkayga shaqeyna aan tago wallahi inaan Soomaaliya Mareykan wax uga baahnayn Obama inaan la soo kulmaa soo laabala intaa ku imaalaha marka baasaboorka Soomaaliga madaxweyne hala tayeeyo tayaha loo yeelo on arrival ha lagu qaato fiisisa ugu dambeyntii Jaanis madaxweynaha Jaanis ku haystaa hal su'aal aydo madaxweyne waxaad ka hadashay arintii maalinteed markaad European Union-ga tagaysay arinta Talyaaniga madaxweyne waxaan rabaa waxaad tir dhalinyarada Soomaaliyeed Talyaaniga ku nool waa la soo celinayaa midowga yar waxaan kala shaqeynayaa soo celino madaxweyne hortaas ana waan ka xumaaday maxamed ahaan waxaan ugu xumaaday waxay tahay ninka inuu bad maray intaas dhibaato maray hooyadiis magafe ee ka dhiibta lacag oo yaanyadii laga deensada meel walba la isku talwacday inaad tiraahdo waa la soo celinaa horta taas ani aadaan uga xumaaday waxaa la rabay inaad kala hadasho dawladda Talyaaniga ama Sweden ama Norway inaad tiraahdo wariyaha sharciga igu bobsiya carruurtan halisay oo luuqa kula hadasho sidaas aal rabay madaxweyne midaasna waxaan leeyahay bal haddii micnaha dal jeceliga dhalinyarada dalka loo soo celiyay ay ka aheedna bal waad ku mahadsantaa laakiin dhalinyarada Talyaaniga joogta ee walaalaheena bal sharciga ha loo bogsi taas ka codsanaa la hada waa mahadsantahay waadna mahadsantahay oo madaxweyne oo faraxsana inaan dhowr su'aal ku weydiiyo su'aalahan ay iga kala ilmaamin